waxaa socdaal aan horeyba loo shaacin dalka Finland ku yimaaday ama soo gaaray wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Goodax Barre iyadoo ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay laguna soo dhaweeyay wasiirka ayaa waxa ay ka dhacday xarunta ururka dhalinyarada Kanada ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka midnimada Soomaaliyeed ee Somali Liito injineer Abdirashiid Cawad Diiriye isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshaha wasiirka injineerka ayaa sheegay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland ay tahay jaaliyad mar walba isku duuban kana qayb qaadata horumarka iyo waliba dardargelinta howlaha Soomaaliya injineerku waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaanshaha wasiirka mar walba ay diyaar u yihiin in ay soo dhaweeyaan cid kasta oo matalaysa qaranka Soomaaliyeed waxa isna goobtaasi ka hadlay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Goodax Barre isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland wasiirka ayaa waxa uu ka warramay socdaalkiisa uu maalmahan ku marayay dalal kamid ah wadamada qaaradda Yurub isagoo sheegay in aysan mar walba muhiim tahay in kulan lala yeesho jaaliyadaha si looga dhaadhiciyo qorshaha dawladda Soomaaliyeed ee haatan horyaala wasiirku waxa uu sheegay in xukuumadda isagu uu kamid yahay ay haatan wax badan u suurta gashay waxana uu sheegay inay dhawaan socoto qorsho la rabo in lagu hirgeliyo dastuurka qabiqoraalka ee Soomaaliya isagoo ugu baaqay dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan hirgelinta dastuurka Soomaaliya isla mar ahaantaasna ay qayb ka ahaadaan fikirka lagu ansixinayo inta aanu dastuurkaasi hirgelin intii kulankaasi lagu guda jira ayaa waxaa su'aalo weydiiyay wasiirka qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland iyadoo ay sheegeen in xilligan aysan macquul ahayn in la hirgeliyo dastuur balse laga hormariyo in lagu dadaalo sidii loo horumarin lahaa bulshada dhinaca nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka wasiirka waxaa kaleeto la weydiiyey sida ay macquul ku tahay dastuurkan haatan la hirgelinayo oo aysan qayb ka ahayn jamhuuriyadda la magac baxday Somaliland oo horeyba uga mid ahayd Soomaaliya mar walbana la sheego in ay ka mid yihiin Soomaaliya wasiirku waxa uu su'aalahaasi kaga jawaabay in marka ugu horeysa ay muhiim tahay dalka Soomaaliya loo helo dastuur dal aan dastuur lahayna uusan noqon karin qaran waxana muhiim ah ayuu yiri in laga gudbo dawladda ku meel gaarka ah loona gudbo dawlad rasmi ah waana sababta keentay in la hirgeliyo oo aanu anagu awoodda u saarno ayuu yiri in dastuurkaasi uu noqdo mid hirgala si looga gudbo ku meel gaarka waxa kale oo jawaabta ku saabsan sidee uga mid noqon karaan dastuur aysan qayb ka ahayn Somaliland waxa uu sheegay in Somaliland ay horeyba uga mid ahayd Soomaaliya haatanna ay diyaar u yihiin in mar walba wada hadal iyo is-afgarad lagu dhameeyo xaaladda ama waxa ay tabanayaan gabagabadii kulankaasi ayaa waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Kanada Cabduqaadir Axmed Nuur Hadaafo isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshaha wafdiga wasiirka waxa kale oo uu sheegay sida wanaagsan ay uga soo qayb qaateen ama ay soo agaasimeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland oo uu sheegay in mar walba lagu yaqaano midnimo guud Cabduqaadir Hadaafo ayaa wasiirka waxa uu ka codsaday in salaan guud uu ka gaarsiiyo dhammaanba gulihiisa wasiirada iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo dhigiisa ra'iisul wasaaraha Cabdiwali Gaas waa markii ugu horeysay oo uu wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Soomaaliya uu socdaal ku yimaado dalka Finland gaar ahaan magaalada Helsinki waxaana xafladaasi ay u dhacday si wanaagsan iyadoo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland isku aragti ka ahaayeen in mar walba si wanaagsan loo soo dhaweeyo wafdiga ka socda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Helsinki